maanta oo ay bishu tahay 3 bisha Juun waxaan halkan ka soo jeedinaynaa arrimo muhiim u ah gelidda imtixaanka fasalka 12 dugsiga sare iyo wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare howlaha ay hayso iyo meelay wax noo marayaan. haddaba wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare waxay mahad ballaaran u diraysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay uu muhiimadda koowaad siiyey madaxweynaha in imtixaanka fasalka 12aad oo culays ka taagnaa dhaqaalihii ku bixi lahaa inuu ballan qaaday in dhaqaalahaas la bixin doono, wasaaradda maaliyaddana uu la kala hadlay in arrintaas ay fududeyso. haddaba sidaa darteed wasaaradda waxbarashada waxay iyadoo arrintaas ka duuleysa waxay iclaamisay in imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare guud ahaan dalka la geli doono 18 Juun oo maalmo yar inaga xigaan. haddaba wasaaradda waxay ku jirtaa diyaargarowgii ugu dambeeyey annagoo diyaarinay xarumaha imtixaanka guud ahaan iyo kaararka aqoonsiga ardayda, waxaana ka shaqeynay amniga xarumaha imtixaanka lagu galayo guud ahaan magaalada Muqdisho iyo maamul goboleedyadaba. haddaba waxaan ku wargelinaynaa dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir oo aan ardaydooda weli qaadan kaararka aqoonsiga imtixaanka lagu galayo inay kaararka aqoonsiga u soo raadsadaan wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare xafiiskeeda ku yaala kilomitir 5 ama Zoobe qof walba si u yaqaano. ugu dambeyn 4 Juun haddaba arday aan wadanin kaarka aqoonsiga imtixaanka ku galaya ama dadka si u yaqaan roll numberka inuusan geli doonin imtixaanka dowladda. haddaba waxaan ku wargelinayaa dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir ee aan ardaydooda u qaadin kaarka aqoonsiga imtixaanka ay ku geliyaan inay ayagu mas'uuliyadda qaadi doonaan. haddaba waxaan halkan mahad ballaaran ugu jeedinaynaa boqolaalka dugsi ee ku yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada ee qaatay kaararka imtixaanka lagu galayo. kaarka imtixaanka gelidiisana wuxuu muhiim u yahay ardayga inuu imtixaanka uu galayo lana aqoonsan imtixaanka uu yahay waxaa muhiimadda imtixaanka.